xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta ee Manchester United Paul Pogba ayaa ku jahwareersan qaabkii uu u kala saari lahaa labada kooxood ee Juventus iyo Real Madrid oo labada kooxood ee aadka loola xiriirinayo xidigan u dhashay wadankaasi Faransiiska ee Paul Pogba ciidankan ayaana markaa la rumaysan yahay inuu ka faaruqo doono Stadia Old Trafford ee kooxda kubadda cagta Manchester United waxaana warbaahinada ay xusayaan in Paul Pogba ilaa iyo hadda uusan ku dhawaaqi karin kooxda uu doonayo in markaa garoonkeeda uu ku biiro ma waxay noqon doontaa inuu dib ugu laabto kooxda kubadda cagta Juventus oo ah kooxdiisa hore ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Talyaaniga ama wuxuu aqbali doonaa dalabadii ugu dambeeyay kooxda ka dhisan horyaalka Spain ee Real Madrid oo doonaysa in Pogba ay u adeegsadaan qaybtooda qadka dhexe maadaama uu ka mid yahay isbedelada Real Madrid ay doonayso inay markaa ku sameeyso kooxda Real Madrid Paul Pogba ayaa heshiiska kooxda kubadda cagta Man uu kula joogo waxa uu ka eeg yahay bishii lixaad ee sanada 2021 waxaana loo arkayaa ciyaartoyda ugu wanaagsan ee qaybta qadka dhexe waxaana waqti madow uu ku haystaa Stadia kooxda Manchester United waxaana la leeyahay Pogba muusan soo bandhigii lagu yaqiinay tan iyo xilligu uu ka tirsanaa kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus waxaana la leeyahay Pogba waxa uu doonayaa gabi ahaanba inuu isaga dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Manchester United wiilkan reference ee Pogba ayaana macquul ah in uu sanadka cusub uu ka faaruqo kooxda kubadda cagta ee Manchester United hadii la isku fahmo dalabyada Manchester ay doonayso sida Juventus iyo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid kooxda kubadda cagta Manchester United fursada wacan ay ka haysataa markii loo arko ayaa la leeyahay kooxda kubadda cagta Juventus laakiin wiilka reference ee Paul Pogba ayaana u muuqan kara inuu dib ugu laaban doono kooxda kubadda cagta ee Juventus ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Talyaaniga hadii kalena Real Madrid ayaa lacag aad u fara badan ku doonaysa in ciidankaasi ay ku geeyaan horyaalka La Ligaha wadankaasi Spain taageerayaasha kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa dalbanaya in laga faa'iideysto qorshaha ugu weyn ee kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur waxaana ay doonayaan in markaa garoonka Anfield lagu soo biiriyo xidiga Son ee ka mid ah weeraryahanada kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur waxaana ay u arkayaan in ciyaaryahankani fursada uu kubadda cagta uu ka rajeenayo inuu ka heli karo kooxda kubadda cagta Liverpool Son waa ciyaaryahan aad u wanaagsan ay taageerayaasha aaminsan yihiin waxaana ay xusayaan in laacibkani waxtarka leh uu noqon karo ciyaaryahan mar walba u baahan in uu helo koox ku guuleysan karta tartamada kala duwan ee laga ciyaaro qaaradaas Yuruba Liverpoolna waxay ka mid tahay kooxaha inta badan ee awoodda u yeelan kara inay ku guuleystaan isla koobka laga ciyaaro gudaha wadankaasi Ingiriiska taageerayaasha kooxda kubadda cagta Liverpool ayaana markaa codayntii ugu faraha badnaa siiyay xidigaasi ka tirsan kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ee Son waxaana ay u arkayaan inuu yahay laacibka kaliya ee u qalma inuu ku soo biiro Stadia Anfield ee kooxda kubadda cagta Liverpool maadaama Son macallinkii saaxiibada gaarka ay ku hayeen kooxda kubadda cagta Tottenham Pochettino laga eriyay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur taageerayaasha Liverpoolna waxay leeyihiin xaqiiqdii waxaynu u nahay taageerayaal mudnaan gaar ah siin kara ciyaaraankaasi aad ayaynu u jecelnahay waxaana dhammaanteena nahay kuwa aad u jecel Son in uu aqbalo codsigeena ay in uu markaa u soo jeesto Stadia Anfield ee kooxda kubadda cagta Liverpool tani waxay ka dhigan tahay hamiga taageerayaasha kooxda kubadda cagta Liverpool walow aysan go'aan gaarin maamulka kooxda kubadda cagta Liverpool iyo tixgelinta laga warsugi doono inay markaa codsiyada taageerayaasha kooxda kubadda cagta Liverpool ay fulin karaan hadii markaa taageerayaasha ay dalbanayaanba in Son lagu soo biiriyo kooxda kubadda cagta Liverpool garoonkeeda Anfield maamulka kooxda kubadda cagta Manchester City ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska ayaa doonaya in heshiiska Raheem Sterling uu kula joogo kooxda kubadda cagta City garoonkeeda Etihad Stadium oo ah mid furan inay gabi ahaanba ay soo xiraan si ciidankaasi Raheem Sterling aysan u soo haminin dhowr kooxood ee ka dhisan horyaalada qaaradda Yurub oo aad u daneynaya laacibkan reer Britain ee Raheem Sterling waxaana ciidankan la leeyahay garoonka Etihad Stadium ayuu ku qaadan karaa toddobaadkiiba lacageed gaaraya 300 oo kun oo lacagta banka laakiin 24 jirkan Raheem Sterling oo dadaal aad u fara badan sameeynaya taasi oo aad ugu riyaaqeen dhammaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta Manchester City oo markaa ku tilmaamaya in Raheem Sterling uu muhiimad gaar ah u yahay kooxda kubadda cagta ee Manchester City Raheem Sterling ayaa kooxda kubadda cagta Manchester City wuxuu ku soo biiray 14 bishii July ee sanadii 2015 xilligaasi uu ka soo ambabaxay kooxda kubadda cagta Liverpool heshiiska kooxdaasina wuxuu ka dhici doonaa sanadka 2023 balse waa heshiis aad u furan laakiin waxay doonayaan in arinkan uu noqdo mid ay gabi ahaan baxeen daabkiisaba ay soo xiraan si ciidankaasi Raheem Sterling u noqdo heshiiskiisa mid u xiran kooxda kubadda cagta ee Manchester City
waxaana la xusayaa in maamulka kooxda kubadda cagta Manchester City ay markaa doonayaan in ciyaaryahankani arrinkiisaba ay soo gabayaan toddobaadka ee fooda nagu soo haysa halka Raheem Sterling la leeyahay waa uu diidan yahay in heshiiskaas uu noqdo mid soo xirma laakiin xidigan Raheem Sterling ayaa fursad wacan ay u tahay lacagahani aad ku faraha badan ee mushaaraadka waxaana arrinkan ay ka dhigan tahay inuu noqon karo xidiga ugu mushaarka badan ee kooxda kubadda cagta Manchester City waana rajada ugu weyn ee maamulka kooxda kubadda cagta City ay leeyihiin inaysan gacantooda si fudud uusan kaga amba bixin xidigani Raheem Sterling kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ee ka dhisan horyaalka waddankaasi Germany-na waxa ay xusayaan maamulkooda inaysan wax baqdinba aysan ka qabin labada kooxood ee Manchester United iyo Liverpool oo aad loola xirniyay da'yarka u dhashay waddankaasi Ingiriiska ee Sancho agaasimaha kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund waxa uu leeyahay tani waxay tahay mid aan aaminsanahay in xidigaasi Sancho aysan markaa ku guuleysan karin Liverpool iyo kooxda kubadda cagta Manchester United taasi waxaan u leeyahay laacibkani kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund awood ay u leedahay xil ciyaareedka soo socda inay ku sii hakiso horyaalka Bundesliga waddankaasi Germany maadaama laacibkani Sancho oo hore ugu dhawaaqay inuu doonayo inuu dib ugu laabto horyaalka waddankaasi Ingiriiska asagoona xusay midkood inuu ku biiri karo labada Manchester sida City United-ka ayadoo Liverpoolna ay markaa ka mid tahay kooxaha sida gaarka u xiiseynaya xidigaasi reer Britain ee Sancho laakiin agaasimaha kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ayaa wada olole ku aadan qaabka ciyaaraankaasi oo markaa Sancho uusan kaga dhaqaaqi laheenin kooxda Borussia Dortmund ee Bundesliga waddankaasi Germany ciyaaraanka kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund Mario Götze ayaana markaa sheegay gabi ahaanba inuu ka dhaqaaqi doono kooxda kubadda cagta ee Borussia haddii xil ciyaareedka soo socdana oo sii hogaamiyo kooxdaasi macalinka waqtigan hogaaminaya Lucien waxaana la xusayaa in ciiraankani waqtigan xaadirka uusan ku qanacsanayn in hogaanka kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund uu sii hogaamiyo Luciana laakiin 27 jirkani ayaana markaa go'aansan doona inuu mar labaad uu isaga dhaqaaqo kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund xidigani ayaana markaa la sheegayaa in uusan u qalmin hogaanka kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund macalin Lucien Favre waxaana la sheegayaa in uu Götze aad uga carooday kursiga kaadka kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund dhammaan 90 daqiiqo oo kaliya ayuu markaasi weyn ugu dhex muuqday ayaa la leeyahay isku dar isagoo xil ciyaareedkani aanan ku qancin qaab ciyaareedkiisa sida uu la dhaqmayo tababaraha kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund Mario Götze ayaa ka mid ah ciyaartooyda sidoo kale ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund waxaana dhawaan uu diiday dalab ka soo gaaray horyaalka sirada waddankaasi Talyaaniga hase yeeshee waxa ciyaarankani Mario Götze uu leeyahay haddii ay dhacdo in macalin Lucien Favre uu sii hogaamiyo xil ciyaareedka soo socda kooxda Borussia Dortmund waxaan si rasmi ah u macsalaameyn doonaa kooxdeeda iyo taageerayaasheeda ayaa laga soo xigtay xidigaasi Mario Götze waryaanka kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich Roberto Lewandowski waxa uu leeyahay aad ayaan u soo dhaweyn doonaa macalin Pep Guardiola haddii uu ku soo laabto garoonka Allianz Arena ee kooxda kubadda cagta Bayern Munich Bundesliga waddankaasi Germany ninka kan u dhashay waddankaasi Poland ee Roberto Lewandowski ayaa ka mid ah xidigaha sida gaarka u daneynaya in sida ugu dhaqsiyaha badan marka la soo dedejiyo arrimaha ku aadan macalin Pep Guardiola waan soo dhaweyn doonaa waa macalin aan aad u jecelahay waana sidoo kalena macalin khibradiisa laga faa'iidi kara ayaa laga soo xigtay Roberto Lewandowski tani waxay dhamaan inoo tahay farxad aad u weyn haddii Pep Guardiola mar kale uu qabanayo hogaanka kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee Bundesliga waddankaasi Germany inta u dhaxaysay sanadii 2013 ilaa 2016 ayuu markaa hogaaminayay macalin Pep Guardiola kooxda kubadda cagta Bayern Munich iyadoo la ogsoon yahay in kooxda kubadda cagta Bayern Munich loo magacaabay 26 June sanadii 2013 wuxuuna kooxdaasi ka soo dhaqaaqay 30 June ee 2016 kadib wuxuu ku soo biiray kooxda kubadda cagta Manchester City oo loo magacaabay 1 July ee sanadkii 2016 ilaa hadda ayuu hogaaminaya kooxda kubadda cagta ee Manchester City balse Roberto Lewandowski ayaana kalsooni weyn ku qaba in kooxda kubadda cagta Bayern Munich kalsooni weyn ku qabtay inay la soo wareegi karaan macalin Pep Guardiola ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa doonaysa inay xoojiso dalabkeeda ku aadan xidiga qadka dhexe Sporting Lisbon ee Bruno Fernandes waxaana caqabad xooggan oo ay kala kulmi kartaa kooxda kubadda cagta Manchester United kooxda Tottenham maadaama tababaraha cusub ee kooxdaasi macalin Jose Mourinho uu leeyahay taageero weyn ayaan u ahay xidigaasi
Bruno Fernandes waxaana uu imaan doonaa kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur arinkani oo caqabad xooggan ee marka ay ku noqon karto kooxda kubadda cagta Manchester United laacibkani ku wanaagsan qaybta qadka dhexe ayaa kamid ah ciyaartoyda waqtiga kan caadilka ee lagu hadal haynta badan yahay 8 gool ayuu dhaliyay waa ciyaaryahan marka laba position muhiim ah ka ciyaari kara laakiin Jose Mourinho ayaa arinkaasi doonaya in fikirkiisa u adeegsado maadaama Jose uu yahay macallin inta badan ciyaartoyda positionada u kala bedela waxaana uu doonaya in kooxda kubadda cagta Tottenham ee loo magacaabay in uu ka dhigo koox awood badan ciyaartoyda qaarna uu sheegay in ay yihiin kuwa la doonaya positiono kala duwan in loo baro laakiin kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa doonaysa in sanadka cusub ay noqoto kooxda ugu horeysa ee ku guuleysan karta ciyaaraankaasi Bruno Fernandes laakiin tababaraha cusub ee kooxda Tottenham Jose Mourinho ayaana macquul ah in arinkani fargelin xoogan uu ku sameeyo si ay kooxda kubadda cagta ee Manchester United u guul dareysato dalabka xidigaasi Bruno Fernandes